السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalaheen soo dhawaada Ramadaan Mubaarak waxay ahaayeen wiil iyo waalidkiisii maalin maalmaha kamid ah iyagoo sheekaysanayaan ayaa albaabkii lagu soo gargaraacay markii lagu soo gargaraacay nin ayaa iska soo galay nin oday ayaa iska soo galay aabihii wiilka dhale waxa lagu dhahay walaalow deynta aan kugu lahaa isii waxaan kugu leeyahay lacag gaaraysa 900,000 runtii wiilka aad u murugooday markii aabihiis lagu lahaaday deynta kadibna loo imaaday lagu dhahay deynta iska bixi wuxuu galay guriga ayuu galay markuu guriga galay wuxuu soo bixiyay lacag uu aruusanay oo ku aqal gal rabay runtii lacagta markuu soo aruuriyay odayga ayuu u keenay wuxuu ku dhahay adeer lacagta baaqigeeda insha Allah aniga ayaa ku siinaya runtii wiilka shaqo ayuu raadsaday shaqo fiican buu helay wiilka wuxuu noqday wiil fiican oo karti leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayuu tala saartay waalidkana u duceeyay wiilka wuxuu noqday wiil nashaad badan wiil ummadda ay jecel yihiin wiil dadka isla shaqeynayaan ay jecel yihiin asagoo xafiiskiisa fadhiya ayaa loo yeeray waxa uu yeeray maamulaha ayaa u yeeray maamulihii awaalmarin ayuu siiyay wuxuu siiyay lacag fara badan iyo gaari ayuu siiyay runtii asagoo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u mahadnaqayo ayuu guriga imaaday waalidka ayuu u sheegay waalidkana wuu iska ooyay wuxuu ku leeyahay macaan lacagtii aad aruusanayso oo aroos ah ku garabtay ya aniga deyntiga bixisay awaalkii ay sameysay iyo wanaagii aad sameysay ayaa ku heshay hantidan fara badan ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا